السلام عليكم ورحمة الله تيم Opulence Empire iyo dhammaan walaalaha inaga daawanayo Opulence Empire YouTube channel keena marka ugu horeysa waxaan leenahay Ramadaan mubaarak Ramadaan wanaagsan Ramadaanka hal asbuuc sii gabagaba ma sha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku ka aqbalaha inaga dhigo kuwii Ramadaano badan ku gaarsiiyay cimri caafimaad cibaado suuban ha inaga dhigo insha Allah maanta waxaan jeclaysan inaan idin siino update oo ah company-geena ka soo yeeray shalay oo ahayd maalin Sabti ah English waxa la wixii lagu soo bandhigay ayaynu afkeena hooyo ku dulmareena insha Allah bi idnillahi kariim sa u jeedaan ciwaanka waxa loo bixiyay spring update spring waxa waaye jawiga afar jawiya wadamada la galaa marka spring ku lagu jecel yahay kamid tahay yaani waxa laga soo baxaya winterki qaboowihii dadka noloshiisa ku soo noqonaysa waaye right oo markay dadka harvestiga badan ay sameeyaan dadka farmerska ah marka tii la jaan qaadayna jawigaas cusub la galaayo marka maxaa company-geena ka cusub marka Opulence Global ma sha Allah tabarakallah waxyaabaha ka cusub ko ma sha Allah tabarakallah buugan ayaana loo sameeyay buugan muxuu ka hadlayaa wax allaale waxa alaabo company-geena iibiya ilaa iyo midda u dambayso ugu cusub oo ah divine mar dhow ka hadli doono yes so ina xasuusatid ma aha shay kasta maxaa laga sameeyay muxuu taraa waxasi so door xabaa gadanaysa mid office-kaaga gurigaaga ku oolaya mid borsadaada kuugu jiraya mid haddaa shaqada joogto ku oolaya anytime saa qofkii presentation u samayn kartid marka dhowr xabo ayaa la gataa waa presentation kuu diyaarsan powerpoint aada u baahaneen computer ayaadan u baahaneen qofka adoo la fadhiyo ayaa la dulmaraysaa ha dawada adiga maxaa laga sameeyay waxan shaambada maxaa laga sameeyay waxan ina xustin ma aha ma sha Allah tabarakallah ilaahay heer ha ina gaarsiiyo buugaan oo kale aan ku turjino afkeena hooyo ha presentation ayuu ku yahay alaabtiyo dhan ayuu hal kuugu bandhigaya ma sha Allah sa u jeedaan 16 shalayso isla haddaba waa dalban kartaan ha dhowr xabo 3 5 waxay doontaba oo meel kasta ku yaala adiga oo mar kasta saa u soo qabsan kartid ha ku noqoto ma sha Allah tabarakallah maxaa marka xataa lagu daray alaabteena cusub saa idin sheega divine mar dhow ka hadli doona shay aad aad cajaa'ib u ah mouthwash keena kan afka lagu nuluqdo ayaantii sawirka aniga aan galay hambal yaalay abay Naciima Cabdinuur qof igu soo xigo way teamkeena dhowr qof oo macaamiisheena xataa waxa ay sawir ii soo dir ilaa bisha dhamaanin mouthwash keena kan afka lagu nuluqdo oo amazing asagana soo baxay iyo kan afka isbareyga ah waa lagu soo daray 40 page way marka sa u jeedaan waa presentation dhan buugaan okay 8 new pages ayaa lagu soo daray Save Home Revolution ka hore ahaysana mid yar u ahaa oo dadka aasiisin jirnay kan laakiin waa presentation ma aha dadka aasiisid ayuu kula fadhiyo koob shaahado la cabayo ayaa la dulmaraysa ma sha Allah tabarakallah marka hadda wuxuu ku jiraa promotion sa u jeedaan 25 xabo $35 ku helaysa ha 25 xabo hadhow wuxuu noqonaa 48 so promotion-ka ina ka faa'iideysatid 25 kaas goormay ku heenayaan in badan because again ma aha kii dadka la siinaya unless meel salon oo kala ah qofka salonka dhehaysid dadka intay sugayaan timaha loo sameeyay ha akhristaan gadaal information-kaaga uga dhajinaysid right meelaha la fariisto oo waiting-ka ah hadda dentist oo kale wax dhigi kartaa qofka waxyaabaha dadka ay daawanayaan laakiin ay dhigayaan ha ku daraan sidoo qofku u sameeysto meelo badan ay geeyeen kartaa laakiin inta kale adaa haysanayso wax badan ayay ku heenaysaa waana $35 kaliya okay waxa kale hambaliyo intee baa sugayna ilaa iyo January waa xasuustaa waxaan joogay Winnipeg markii la soo bandhigay promotion-keena cusub Fairy Fountain of Life yes 14 xabo ayaa dalbanaysa 2 xabo oo bilaash ayaa lagu siinaya yes waa $200 oo free ah labadaas marka maxaa u isticmaali kartaa ama sampling-ka hadda anaga Ottawa mar kasta event-yaala sameeyna hadda mid soo socdo ilaahayno 20 April waxaa noo imaanaysa Sherry oo ah gabadha ugu horeysa millionaire-ka ahayd California nooga imaanayso iyo Brian oo ninka Nigeria dhan dhisay ah ما شاء الله نيجيريا wax badan maqasheen 2 sano number 1 ahead so ay noo imaanayaan so dadka macaamiisheena ama martideena noo imaado waxaan ku tijaabinaa soo maaha so labadan sample ay ku noqonayaan ama adaa isticmaala iyo qoyskaaga inta kale waa iibinaysaa okay so qofka markuu isku gato 14 xabo oo laba bilaash helo $16 imaanayso 6% ayuu faa'iidadiisi kor aadaysaa ما شاء الله تبارك الله سو مدانا غورما انو فرمانيسا ابريل كوديدا ولي لما غارين يا شالay isla markii dad soo qoriyeen hadda ma dalban karnaa no
kowda abriil waana perfect because dadka badankood lacagta goormay usoo dhacdaa bisha dhammaadkeeda ama bilowgeeda maasha allah tabaaraka allah so abriil spring uu bilaababa orod ayaa ku bilaabaysa hadduu ilaahay idmo okay maxaa kale maasha allah tabaaraka allah hadda waad aragtee maxaa soo socda ciid ha mar dhow waxaa bilaabanaya aroosyaashii xafladihii markasta dadka maxayna dhahaan alaabtiina waa jecelnahay laakiin waa yar qaali because waa feeri hadda maxaana loo soo badiyey posh yes ayaan dhaweyd abaay raxm la hadlaayay dhowr boorso isoo weydiisa qiimahooda waxaa iri maxaa dhacay waxay tiri gabdhaha shaqadayda aan 2 maalin isku xigta boorsooyinaan qaatay ay ka heleen shaqadayda ku dhex iibinaysa ha night shift ayadoo shaqaynayso ay gadayso boorsooyinkeedii so poshka aaday u gadmadaan dadka badankood 150 ilaa 200 waa okay right so waa kana asaga fiiri duruucda nooca doontid loo xiranayo saas qofka halkaas u gashanaya waa kana iyadana maasha allah tabaaraka allah Maars 20keeda yes waa isniintan soo maaha let me check maanta waa 17 so waa adiga wiiga soo socda right so waa kaasa isla gaara saddexda xabo waa gadanaysaa saasa meel u saaraysa dadka markay ka arkaan ama adaa xabad xiranaayo qof inuu ka helo aa ka iibine imise tukaamo ama moolo ayaa taqaanaa hadda abaay fatuna cali abaay naciim way ku jiraan moolasha ugu waaweyn oo ku yaala Minnesota Caramel Mall waay ha maryihii saasay u yaalaan marka gabdhahaas maryaha sameeya aa dhahdid boorsooyinkaana ila fiiri ayagana markay ku iibiyaan waxba laga siiya ani tukaamada markaa wax geysto 10% ama waxaan ka siiya because anaga 40% waa faa'iideyna right 10% adaa iska lahaan dhahaa halkaa iisoo qofkii jeclaada iisoo sheeg right badankood habiya ku yiri cabaayad agtaalo asaas oo la suraysaa maasha allah gabdhaheena Toronto tukaamada la saas ayay sameeyaan so aad aan kula talnaa saddexdan piece oo kale waa qaadanaysaa u suri as a sample ayagana ha iska gadin dadka online ka uga dalbaysaa insha allah waa ogaan doontaan xoog ayay u soconaysaa so maxaa laga sameeyay waa convertible xataa waa la bedeli karaa okay lizard ayaa laga sameeyay textureka lizardka ee dhahaan oo sabiibaha maasha allah tabaaraka allah posh brandingkeena cusub fiiri brandingkeena waa la bedelay si quruxsan tahay u jeedaan hadda waa kaasa aniga aad iyo aad ugu farxay because waxaan ogahay duruucda gabdhaheena inay wada xirtaan waa one time investment aroos kasta aad ku aadi kartid yes abaay fatun waxay tii 20ka waa Wednesday fatun kalendarkayga tahay ileena maasha allah tabaaraka allah haye maxaa kale wow intee baa sugayna productiga ma taqaanaan 2 years waaga hore waa midii loo bixin rabay phytoclinical laakiin ayadii la sii hagaajiyay 3 doctor oo PhD ah oo Canadian ah ay ka soo shaqeeyeen waay one of them ani waa la kulmay mar aan taga xarunteena gabar markaa Vancouver ka soo gashay dadka dhaqaatiirta ka soo shaqeysa ayay kamid tahay divine yes divine way inoo soo baxda maasha allah tabaaraka allah maxaa marka ko divine u yahay divine waxa waaye kaniini ama wax supplement oo qofka ko immune systemkiisa difaaciisa ka shaqeynayso waxa ugu weyn aynu u xanuunsano maxaa waaye difaaceena ayaa hoos galay difaaceena ayaa kor u soo qaaday maxay kala la dagaalaysaa free radical maxaa waaye midda wax kasta ka hadalno kulligeen telefoon ay haysanaa hadda wifi baynu ku wada jirnaa waa wax kasta guryaha waxa ku kalin gareena ka imaataa hurdo la'aanta stresska soo kulligeen ayaa waxaan nahay free radical socda ayaa la dagaashaa difaacagana way dhisaysaa wax allaale wixii korkaaga taageeraynaayeen way la dagaalaysaa taasi marka maxay keenaysaa skinkeena xataa inuu dhalaalayo yes inuu galowgareynayo waa xasuustaa waagi Fountain of Life aan bilaabay waxa ugu horeysa ee dadka feedback siiyeen waxa waaye waa dhalaalowsa I will never forget why way ikling garayse middan way ka sii daran tahay lagu leeyahay Fountain of Life hibo soo dhawo macaanta welcome way ka sii daran tahay saa u jeedaan waa natural waa vegan gluten-ki iyo GMO free waxa ma arkino GMO waxa waa markii lagu daro shayga wax oo sidaysan wiligeed u dhicin shay ahayd inuu dhaco bil ilaa 2 waxaan ka wadaa sanad ilaa 2 sano waxa lagu leeyahay 10 sano ayuu oolayaa waxaas oo dhan lagu darin maasha allah tabaaraka allah waa natural canning okay maxay tahay divine waxa waaye koob sa idin sheegay waa dhowr ingredient ayaa ku jirto dhowr wax ayaa laga sameeyay waxyaabaha ugu weyn ee target gareynayso ee la dagaalaysana maxaa waaye ko difaaca inay dhisto maxaa kale antioxidant wili way leedahay yes wili wasaqda way saaraysaa haye intaasoo benefitna way leedahay maxay kaloo haysataa wax la yiraahdo zinc okay zinc waa wax korkeena u baahan yahay
ها oo u baahan yahay waaye saasuuna ogyahay kaniiniyaasha mar dhawa actually moor arki doontaan shay kastoo marka lagu daray waxa lagu daray wax balance ka dhigaayo jirkeenni ha wax kala korreysiinaya ma aha okay maxaa kale waxay ku tahay its effectiveness can still vary among yes so sidii wax kasta ee tahayba faa'iidada sida loo kala helaayo way ku kala duwan tahay qof kasta suu ilaahay u sameeyey caafimaadkiisa waqtiga uu ku jiro agekiisa ayay ku xiran tahay so everybody isku si ogama faa'iidaayo ama isku waqti kama faa'iidaayo sida fountain of life kan waa aragteen hooyaday macaan 3 cisho ku dareentay anigana dhowr asbuuc ayaan ku dareemay everybody waa different okay maxaa kale maasha allah tabaaraka allah waxyaabaha marka lagu daray divine maxaa waaye package-ka intiinee ka heshay ani package-kaaga ku haystaaba waxay u egtahay iyadoo dhan very expensive ah aad iyo aad u quruxsan maasha allah tabaaraka allah maxay tahay marka waa supplement that supports your immune system sa uga hadalnay so dadka marka usoo bandhigayso kow waxaa leedahay difaacaaga everybody maanta adduunka joogo difaaciisa wuxuu ka qabaa walwal yes cudur oo dhan maxaa sameeya oo difaacaas maxaa kale oxidative stresski ayay korkaagii ka protect garaynaysaa ama ka xifdinaysaa maxay kale promotes healthy skin skinkeena inuu quruxsanaado imise qof ayaa taqaanaa ka cabanaysa korkooda suu ogyahay waxyaabaha ugu weyn ee dadka siiyaan yani compliment maxaa waaye skinkaaga waa smooth alxamdulilah right so everybody ayaa jecel smooth skin maxay kaloo ka caawinaysaa waa kana maxaa lagu daray marka waxa la yiraahdo maritime pine bark waxyaabahan by the way isniin kasta sanaas oo ah senior vice president waxay tiri hal ayaa idin bari doona so kulli hadaada fahansaneen qasama inaa fahansan tahay okay glutathione wax laha ku jiro vitamin C oo korkeena u baahan yahay maxaa ciridda oo kale anaga cirid ma aragnaa waa maya hadda Bahamas waa aragteen one week soo joogay saas oo gambanayna ciridda nalama tuso ciridda right so waa loo baahan yahay korkeena ayaa u baahan maxaa kaloo ku jiro lafaha grape ama canab yes canabkana waa aragtay waxay dhahaan dadka yani qofka ma age gareeyo ama ma duug ma noqonayo ama weynaanayo markuu badsado waxa la yiraahdo zinc iyo vitamin D3 waa wax allaala waxa korkeena u baahan yahay nafaqana way ku siinaya qofka leedahay difaacagana way ku dhisaysaa okay waa kana marka midkaan oo kala sawirka qaata ha inay xasuustid ma aha waxyaabaha ku jiro oo dhan waxa ugu horeysa ay sameynaysa maxaa waaye it will maintain and regulate your immune system difaacaga ayay marka ugu horeysa hadduu already fiicnaana meeshiisa uu joogaya si uu marna hoos uga dhicin regulation uu ku sameynaya haddii uu kala koreeyo badankii uu kala koreeya waa waxa har iyo habeen u jirnayno ay samaysaa maasha allah tabaarakallah maxay kale ka caawinaysaa beerkaaga yes iyo cellska cells waxa u maleynaa in la dhaho unugyaasha right unugyaasha korkeena ku jiro ee waxay ku sameynayaan detoxification way killing gareene yes wax allaale waxa wasakhay adiga waa isdeenaysaa maxay kaloo ka caawinaysaa gut health ha hadda ayaan dhaweyd inan oo soo dhajiyo hooyadii inay xanuunsan tahay usoo duceeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu caafimaadiyo ayaan meesha ka arkin qasa waxa ay hooyo waxaan u hayaa wax caawin kara ma la fiirinaysaa buugiyo qaatay 5 minutes kadib uu soo noqday anigana waa raba inaan gato waa wareysta marka wuxuu yiri accident hadda ka hor intaan galay calooshayda dib intuu soo gaaray ilaa iyo hadda gadkayga waa caloosha waxa halka oo qof uga jiro ay ilaa hadda xanuunayo cunto ma cuni karo jiifkayga wax kasta 3 days soo qaadanay maanta ayuu soo wacay asoo Montreal u sii socdo waa yaabaysaa yiri 3 habeen qaadanaysa u seexday calooshaydan way isii dagoosaa so gut health waa ka soo ka caawinaysaa qofka maxay kaloo caawinaysaa respiratory neefta ha dadka hadda khuuriyo oo kale iyo way u furaysaa waxyaabo waxa jiro marka khuurada badan tahay oo halkan qof ka haysto ayay u furaysaa waxa iraanaa u baahan markay aad u daalanahay dadka khuuriyo ayaan ahay maxay kale aids in vision maintenance yes aragtidina u fiican tahay abay faadun faarax hadda kor waxyaabo nala wadaagto waxa kamid ah markay qaadanaysa 8 bilood miya wax saas ah fountain of life sanad kasta waxay dhakhtarka marka u tago waa liigu soo dari jiray aragtida maalinba madax wareeran ka bixi waa marka u tago wuxuu ugu dhowyay dhakhtarka maxaa isticmaasho waay aragtidii ay haysatay ayaa ku badatay in laga yareeyo noqoto meesha lagu badin jiray midaana fiiri aragtidaadana wax isii dhehaysaa maasha allah tabaarakallah maxaa kale macaanka yes
inta qof ka soo hadasha fount of life inay macaan ka caawisay maalintay divine gacanta ku dhigaan waa la arki doonaa hadduu ilaahay idmo yes maxay kaloo ka caawinaysaa absorption of other antioxidant hadda annaga fount of life waa qaadanaa wax ugu weyn ku jira maxaa waa antioxidant inay korka sifayso qofka markuu qaadanayo marka antioxidantiga korkiisa suu u qaadan lahaa absorption waxa waaye markuu korka waxa aqbalo ayaa sii fududaanayso so qofkii ku dhaho waxaan qaataa vitamin hebelow iyo daba hebelow ma qaadan karaa yes wixii aad qaadanaysaaba sii shaqaynaya ayaan leedahay haye collagen formation korkeenna waad aragteen qofka markuu yar yahay iyo markuu weyn yahay waxa ugu horeysa lagu kala garta maxaa waaye wejigeenna yes wejiga qofka markuu weynaado way sii dhammaanaysaa markuu yar yahay laakiin asoo dhan bacbac waay right yes collagenka korkaagina way hagaajinaysaa maasha allah tabaaraka allah maxaa kale improves erectile dysfunction okay midaan waxay qusaysaa nimanka yes nimanka dhibaatooyinka ka haystaan ayagana ceebtooda iyo meelahaas aaday uga caawinaysaa yes caafimaadka lagama xishoodo waa u sheegaysaa taasna way kaa caawinaysaa maxaa kale boost brain function and memory yes waad aragteen xagga gogosha waa kaasa jazaaka allah khayra walmacaan maasha allah brain functionkeena waad aragteen maanta qof walba oo naga mid ah 15 hool yoonkii qabanaya ha hadday noqoto caruurtii hadday noqoto iskuulkii hadday noqoto shaqadii hadday noqoto abaayo fatun caliyan ku markasta dhahaa 10 hoola isku haysaa afartaada ciyaal balaa 6 adoo shaqa right hari iyo habeen maskaxdeena marka way buuxsantay xasuustiyaa naga tagtay xasuustuna way kuu hagaajineen yes maskaxdaada way kuu qaboojineen way kuu qof kala miiran ayaa noqon doontaa insha allah maxaa kale improves the skin sa uga soo hadlay korkaagii oo dhan waxay ka dhigaysaa maasha allah skin quruxsan oo glowing ay kasii dhigaysaa maxaa kale benefits heart health wadna xanuunkana aad iyo aad ugu fiican tahay so waxa sabar oo qaadanaysa waxaan oo kale har iyo habeen dadka aan la sheekaysatay qof ka cabanayo waxani saas ayay u buuxaan kii xataa cabanayna uu isaga baahan yahay ha anoo hadda intaan qabin haddana waa sugi la ah maalintaa qaadanaya hadduu ilaahay idmo ha haye halkan maxaa waay marka okay saa idin sheega waxyaabahan badankood isniinta ayaana la sii bari doonaa adiga waxa waa inta muhiimadda inaad ka ogaatid waxa lagu daray marka hadda fount of life waa aragteen geed la dhaho Norwegian spruce tree laga sameeyey midaan maxaa laga sameeyey pine bark wax la dhaho geed la dhaho ha laga soo nuuge okay muxuu haystaa marka strong antioxidant aad iyo aad antioxidantiga fountain of life kasii adag kasii strongaysan ayuu haystaa waxa ugu horeyso marka sameeya maxaa waay geedkan skinkeena ayuu ka ilaaliyaa damageki yes skinka waxay dhahaan is the largest organ in our body okay so qofka skinkiisa waxa waaye korkiisa okay ama jirkiisa ayay damage ka ilaalinaysaa okay maxay kaloo siinaysaa ultraviolet sunlight okay ay siinaysaa maxaa kale waxay ku xifdinaysaa collagenka kulligeen korkeenna collagen ilaahi subxaanahu wa tacaala uu nagu abuuray ayaa jirto tii ayay ku xifdinaysaa okay maxay kaloo kaa caawinaysaa elastic tissue from oxidative damage markii banaanka hadda ciridda aad u baxda ama dabeesha kugu soo dhacdo kale dhibka soo gaaro korkaagii ayay kaa protect garaynaysaa iyadana maxaa kale maantana ka hadalnay immune systemka number 1 waxay dhisayso waa immune systemkaagi ha okay maxaa kale autoimmune diseases cudurro waxaa jira oo dhaho autoimmune diseases oo dadka ku dhaca taasna way kaa xifdinaysaa hadduu ilaahay idmo okay so pine bark extract through its antioxidant and anti-inflammatory may help optimize immune function waa kaasa pine barkiga sida Norwegian spruce tree oo kale wuxuu haystaa antioxidantiga wixii wasakhda saarayay iyo caabuqa wixii la dagaalayay labadaas markii la sugeeyay maxaa kor u kacaayo qofka immune systemkiisi ama difaaciisi maasha allah tabaarakallah haye maxaa kaloo ku jira divinekeena glutathione wax la dhaho iyo vitamin D3 waxa laga yaabaa qaarkiin inaa qaadataan kaniiniyaal glutathione-kan lagu sheegay maxaa waay antioxidant oo dhan aabaheed waay yes wax allaale wax antioxidantiga masterki waay
haye maxay markaa qofka ka caawinaysaa waxay ku protect garanaysaa ama ku xifdinaysaa unugyaasha korkaaga ku jiro in ay ka ilaaliso stresski okay maxay kaloo ka caawinaysaa energygaaga inay ku xifdiso ama ku protect garayso okay maxay kaloo ka caawinaysaa glutathione bone health okay lafaha caafimaadka lafaheena weligii ma aragteen qof markuu salaad kugu agtukanayo markuu kacayo jagac ka yarto waa lafaha lafihii ayaa isxuqaayo habirtay macaan hadda kor saasoo kale 2 jeer la qala labada looga waxa la yiri waa isxuqday okay so bone healthigeena waa muhiim kama walwalno korka iyo dhalaalka un baynu fiirinaa laakiin lafaheena ma caafimaad qabaan okay vitamin 3 gan marka muxuu qofka u taraaya wuxuu u taraaya calciumka hadda caanaho kale maxaa la halacaba calciumka sida loo helo in ay korkeena absorb garaysa ama ay si fiican u soo gasho okay iyo lafaheena inay hagaajiso iyo ilkaheena yes weligaa mis weydiisa caafimaadka ilkahaagana caafimaadkooda maasha allah divine waxaan leenahay wax walba aynu already gadno eebo waxaa moodaa isku keensatay because ilkeena hadda maxaa anaga u qaadanaa dawadeena cadiga right imagine midaan haddii ilkiina kaa caawinayso maasha allah okay labadaa markii la isku daro glutathione-ka iyo vitamin D-ga maxay u taraayaan qofkii waxay u taraayaan kow in ay regulate gareeyaan in ay dhisaan regulation waxa waay markay waxa balance ay noqdaan ay dhisaan ayna xoojiyaan difaaceeni immune systemkeeni maasha allah tabaaraka allah haye vitamin C maxaa noo taraysaa waa tanaliinta ayaa laga helaa cirida laga helaa vitamin C markaas ayada la sheegay right dental health number 1 waxay ka caawinaysaa gum healthiga ilkahaaga ciridka hoostiisa ayay aad kugu dhisaysaa okay sidii ilkahaaga aysan u dhaqdhaqaaqin maxaa kale collagen saa ka soo hadalnay collagenka korkeena ku jiro ayay si fiican oo la shaqaynaysaa ayadana insha allah okay maxaa kale cartilage maintenance helps maintain the integrity and function of cartilage okay so cartilage waxa waa ayadana waxay ka caawinaysaa joint healthigaaga meesha lafahaaga iska galaan okay laalaabka oo dhan okay ayay ka caawinaysaa iyo mobilitygaaga socodkeena iyo xoogeena ayay sii xoojinaysaa insha allah maxaa kale vitamin C-ga ka caawinaysaa antioxidant waay okay potent antioxidant maxay ka dhigan tahay waxna laguma darin yacni waa 100% antioxidant maxay marka la dagaashaa dabcan free radicalka daaya aynu ka hadlaynay oo korkeena har iyo habeen la soo ataagaraynaayo okay maasha allah tabaaraka allah ana dadka waxay canabka jecel wala caada canabka cagaarka ayaan ka jeclahay midka gaduudan marka turki joogo waa xasuustaa midka gaduudana macaana laakiin inta I don't know why kana cagaarka ila macaan ilaahi amarkii okay waxa kaloo lagu daray canabki okay grape seed extract haye canabka marka muxuu taraaya kow wuxuu antioxidant ayuu ka sii dhigayaa potent yani potent waxa waa waxa 100% ah aana waxna lagu darin okay waxay marka ka sii fiican yihiin vitamin C iyo E-ga ay dadka kaniiniyaasha ee liqaan midka canabka laga soo nuugay ayaa ka sii fiican haye maxaa kaloo ku jiro grapefruitkan grape seedkan waxa ku jira anti inflammatory caabuqa inay la dagaasho iyo infectionka okay taasi marka maxay ka caawinaysaa arthritis yes waa sugi lahay kaniiniga hooyada macayna siiyo because fountain of life ayaa wax badan kor xanuunka ka caawisay imagine midkan markay raaciso maasha allah tabaaraka allah haye maxaa kale antioxidantga marka uu leeyahay wuxuu protect gareynayaa ama xifdinayaa korkeeni skinkeeni muxuu ka xifdinayaa UV damage cirida yes cirida anaga hadda waa dhow samara la galaya samaradeena normal ma aha so ciridaas ayuu ka protect gareynayaa maxay kale skin elasticity jijiidka korkeena u baahan yahay because qofka markuu uu sa u taagan yahay iyo markuu jitamayo yani korkiisa xoogaa youthful qof yar u eg yahay right taasoo kaa caawinaysaa iyo agingki yes anti agingna waaye so canabkan anti aging waxaa maqlay dadka oo dhaho hebel age like a wine winekan isbedelin bay dhahaan mogtahay waa canabka isma bedelo adigana ma isbedelaysa ka dhigan tahay maasha allah maxaa kaloo lagu daray divinekeena shay la dhaho zinc okay
zinc maxaa waaye waa wax korkeenna u baahan yahay oo naga caawinaya digestionkii cuntada markuu qofka cunoo kale dadka caloosha taagan tahay cudur oo dhanna muxuu ka bilaaba lagu leeyahay caloosha taagan digestionkeena ayaa inoo ficnaanayo metabolismki waxayna aynu cunno inaynu hadhowti musqusha geen karno iyo nerve health nerve waxa waaye qofka nerveka Soomaali ina soo ogaado waa intiina ku fiican waa soo qori kartaan caafimaadka nerveka qofka hadda markuu xanaaqo kale ma arkin oo meelahan xididada soo istaagaan oo kale waxaas la lahaa nerve taas inuu ka caafimaayo maasha Allah connective tissue formation zinc maxay kaloo ka caawinaysaa waxay ka caawinaysaa collagen ka aynu ka hadalnay iyo extracellular matrix anigaba waxyaabahan wax badan ka ogoonaa jirto waa baran doonaa okay energy and tissue maxay kaloo ka caawinaysaa energygaagi iyo metabolismki wixii aad cuntay hadda waa aragtay ramadaana lagu jiraa dad badan oo waxa arkaysaa ku dhahayo maantana saa u gaajeysanaysa dhahay adduuna cuni kartaa hadhow wax ma cuni karo waxaas maxaa waaye wixii aan calooshoodii aan ka bixinin cuntada shalay cuneen ayaa weli ku jirto so taasna way ka saaraysaa maasha Allah tabaarakallah okay so maxay ka caawinaysaa cuntadii aad cuntay ayaa isku bedelaysa energy wixii wasakhda ahaana way ka soo baxayaan okay taasi maxay ku yeelaysaa new tissue inay ku samayso regeneration and wound healing yes qofka markii ay nabar gaaro oo kale ma ogtihiin dadka way kala fududahay si ay uga caafimaadaan qofna degdeg u soo kabtaa qofna uma soo kabto kaana degdeg u soo kabanin maxaa waaye korkiisa ayaa waxa ka maqan wax oo yani caawinaya inuu hore u soo kabto oo kale so wound healing xataa qofkii daawac gaaray degdeg ayuu u soo kaban karaa ku leeyihiin zinc ka caawinaysa maasha Allah maxay kaloo zinc ka caawinaysaa cells kaagi unugyadii haday aan ka hadalnay turnover of cells and growth inay cells kaaga baxaan okay taasi maxay ku ogolaanaysaa in tissue-gii korkaagii uu samayn karo repair yani cusboonaysiin karo okay maxaa kale korkeennii timaheennii cidiyaheennii iyo lafaheennii so adoo dhan adoo mashiin lagu geliyo oo kala waaye maasha Allah tabaarakallah haye midaan aad iyo aad muhiim u tahay waad aragteen hadda Fountain of Life labelka Canada iyo labelka Mareykanka isku mid ma aha okay waxaasna waxa waaye wadan kasta wuxuu leeyahay regulation rules tusaale annaga hadda markayn reer Canada nahay shay antioxidant ah waa gadi kartaa adoonan ahayn farmashiye laakiin Mareykanka oo kale shay antioxidant waxay ku leeyihiin farmashiye kaliya ayaa gadi karo because farmashiyaha ayay deal la sameeyeen okay maxaa laakiin loo gadi karaa natural supplement so qofka markuu ku weydiiyo maxay u kala duwan tahay ina u sheegi kartid waay okay so waa kaasa labadan label ayay kala lahaan doontaa okay maasha Allah tabaarakallah divine kan maanta ka soo hadleynay goorma aad dalban kartaa hadda idin la hadlayaa dalban kartaan yes maanta kaliya inta qof teamkeena soo wacayso waa yaabaysa oo dhahaysay goorma dalban karnaa hadda waxay ku jirtaa pre-order wax la dhaho pre-order markuu company-ga sameeynaayo waa deal laakiin hal kaliya ayaa lagu ogol yahay because lama rabo dadka oo hal qof inuu 10 dalbado dadka kale ay waayaan hal kaliya lagu ogol yahay okay single halka xabo waa $80 Canadian okay Canadian price-ka LA-ga wadan kale hadaa joogtid waa different okay halka xabo oo ah divine maxaa lagu helayaa 23% CV okay commission boost qualify mar dhow ka hadli doono commissionkii oo la fududeeyay hadda waxaad taqaaneen talaadada jeeg soo dhac soo maaha jimcahana jeega soo dhici doona insha Allah okay maxaa kale marka waa kana pre-order package-ka soo u shaqeynaya labadaana mid dooraneen ka badan ma dooran kartid ama 3 dhalo ayaa dalbanaysaa oo hadaa tahay lifestyle advisor Canada joogta $240 Canadian ay tahay ama 6 dhalo waay xabada bilaash ku ah soo aqliga haduu shaqeeyo hadaa xabad bilaash heli karo oo $80 bilaash heli karo anoo liiga tal liiqata right already maadaama tahay pre-order ee tahay discount okay maxaa marka ku gadan kartaa su'aalaha ugu badan ka weydiiyaan kareer Canada haysatid
opulence currency hadaa haysatid shopping credit yes lacag account-ka hadday taalo taasa isticmaalaysaa oh wait a minute opulence currency transactions only shopping credits are not accepted sorry maadaama ay tahay pre-order shopping credit ma lagu gadan karo sorry shalay waxaa moodaa qof inuu dhahay shopping credit ku dalban kartaa qofkaas uu khaldama u malaynaa okay so shopping credit laguma dalban karo maadaama ay tahay pre-order okay shopping credit waxaa lagu dalban karaa u malaynaa fountain of life-ki ahayd 14 oo abriilkooda soo baxayso midaan lacagaa leedahaa ku gadanaysaa but still it's worth it xabad bilaash ah maxaa kaloo ku jiro I don't know hadday soo socoto waxaa ku jira ma ogtihiin halkii dhalo shalaa la weydiinaya 9 kaniini waa 3 bilood yes hal xab qofka markuu qaadanayo waa 3 bilood halkii dhalo so 6 xaba markaa gadatid ya midiiba ay tahay 3 bilood 3 times 6 maxaa waaye 12 bilood right waa sanad dan ayaa haysataa xabadaadina bilaash ay ku tahay okay all right goormuu marka offerkan soconaa 16 ilaa iyo abriil 16keeda soo shalay abaayo tiimkeena isoo wacday waxay dhahday abaayo haddii aan gadan karo kaliya hadda 3 xabo hadhowta bisha in markay dhamaato lacagta kale aan heli karo aan rabo inaan gato more ma samayn karaa no waxaa ku iri sug ilaa bisha dhamaato lacagtaada markaa isku haysid hal mar 6 xabo dalbo because everybody ayaa loo ogol yahay 6 xabo inuu dalbado okay I hope inaysan naga dhamaanaynin I'll double check like waxaan u maleynayaa everybody is allowed okay purchase 6 bottles pack and receive 1 bottle free okay 3 bottles pack for okay so waa kaasa so 16 maarso ilaa iyo 16 abriil maasha allah goormay marka soo baxaysa qofkii maanta dalbado waxa u maleynaa shalay inay dhahday SVB Senas bishaan dhamaadkeeda bilaabanay soo daritaanka pre-orderka intuu soo galaayo okay so ilaa bishaan dhamaadkeedaba iska dalbo sidii hadhow aysa kaaga dhamaanin abriil ha sugin okay all right maxaa kale yaa diyaar u ah extra check inuu helo asbuuc kasta yes yaa diyaar u hoos ku soo qora I was so excited marka arka midani maasha allah okay commission boost waxa la dhahaa noo soo baxay waxa loo sameeyana wax kale ma aha waxa loo sameeyay waxa waaye dad badan waxay ka cawdeen wala dadka jooga in Asia okay abayo fatuni abayo naimo reer Mareykan way dhaarsan yihiin miya dhahoyaan mi intiina kale waxa u maleynaa jeegina naga nasiinaysaan jimcaha waxna martaan idin soo dhaco soo maaha ما شاء الله تبارك الله هي dadka marka waxay dhaheen residual income kan iyo commission kan oo sayno ognahay waqti qaadan kara way jiraan dad teamkeena 3 asbuuc ku gaaray weekly commission inay sameeyaan way jiraan laakiin dadka qaarkoodna maxaa ku dhaco waqti qaadata intay labadooda gacmood u dhismanayaan right waxay rabaan lacag degdeg ah inay sameeyaan so markuu teamka nala fariistay anagoo liidarayaal ah si ogeena kamid ah dadka la taliyo waxa halka ka soo baxday dadka in loo fududeeyo siday commission u heli karaan tii talaadada wali way soconay mid kale ayaa inoo bilaabanaysa jimca kasta okay sidee bay marka u shaqeysaa commission kan cusub okay sidee bay u shaqeysaa saa u jeedaan waxa helay dadka qualified u ah mar dhawaa ka hadli doonaa sidee qualified ugu noqon kartaa goorma la helaa jimca kasta okay haye sidee marka commission kan loo heli karaa alaabta lagu helaayo haddii aanan khaldaneen waa alaabaheena cusub kolley divine one huba laakiin waxa kale ma aqaan fashion kuma jiraan umaleyna waa soo hubsanaa I don't know why halkan ugu qorneen saa ujeedo waxay leedahay products qualified alaab waxaa jirto lagu helaayo commission kan okay fashion kuma jiro taas waa hubaa okay laakiin waa isoo ogaanaa kuwa lagu helaayo safe home revolution keena inuu yahay ayaa rajeynaya okay sidee u shaqeynaysaa marka commission boostigan 23% CV push up the entire binary so binarygeena dadka ka sareeyo oo dhan shaygan markii la iibsado 23% ayaa dadka dhan ay helayaan laakiin maxaa laga soo reebaa 12% okay 12% waxay galaysaa commission boostigan uusan ahayn qof kastoo kor joogo okay abay naciima gacanta ku taagana u jeedaa ma sha Allah waa soo qabanaya shala kolkii waa ku jirtaa u maleynaa naciima soo dhawo macaanto
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته با إفراح وك سلامي دبايوينك مولالها كل كجرنا وسلامايا ميدا هدرتان أو حلها علابته أو قلمته أما qualified كو إنه commission laga sameeyo every Friday waxaa lahay waxaa waaye productiga oo la isticmaalayo waxaa la wixii oo personal alaabta careka oo daily basis loo baahan yahay saas ba aniga markii aan maqlahay aan ku jiray so bal laba gooraba noo soo xaqiiji mar walba insha allah good thank you maanta so personal care-ka oo dhan ها waxaa la wixii personal care ah iyo health and macna wixii anaga safe home ama revolution cabayno ama safe harbal ha revolution ko dhan macna goojadii kulli divine ku dar saasa aniga waxyaalaha daily basis ka macnii loo baahan yahay ilaa fashion ko kaleeto ma wax laga maarmi karo haddii la rabo moogtahay marka waxyaalaha caafimaadkaaga iyo quruxdaada daily u baahan tahay maasha allah thank you macanto okay so waa alaabteena safe home revolution oo dhan insha allah saasa anigaba ayaanta aaminsanaa fashion kuma jirin okay sidee marka qualified ugu noqon karnaa yes bishaan laga bilaababa sidee jimco kasta lacag u samayn karnaa marka waa kanaa qualificationka ko waxa waaye 3 qof oo ugu horeysa oo upline-ka soo kasoo qaad abaaya naciimo anaa keenay okay 3 qof oo naciimo ka horeysa yaa waaye abaay sacaada maasha allah khad ku jirta sacaada welcome macanta ku jeedaa okay abaay sacaada abaayada naciimo keentay right and then yaa ku soo xigo ko abaayada naciimo keentay aamina laha u maleynaa abaay sacaada then waa aniga okay 3 upline-ka marka ugu soo dhow ayaa helaya qofkii okay yaa heli karo haddaad tahay lifestyle advisor plus haddaad tahay brand partnerkan ugu hooseeyo iyo haddaad tahay lifestyle advisor kulligeen midkoo un baynu nahay cidna lama reebin ujeedaa cidna lama reebin waxyaabaha companigeena ku jeclaa waa saa waa fair ha qof brand partner ayaa kaa bonus badnaan kara meeshani bal fiiriya maasha allah tabaaraka allah commission eligible-ka marka see lagu noqonaa qofka waa inuu haystaa ugu yaraan hal qof bidix iyo hal qof midig that's it so binary weli waynu nahay okay maxaa kale bil walba hadda waa aragteen waxa ugu yar waxa waaye 150 inkastoo hadda badankeen waa hore 250 u guurnay sidii variance bonuska uga faa'iidaysana right so 250 inaad ku adeeganaysid bishii okay maxaa marka 12% marka sidee loo kala qaybinayaa 4% waxa waa qofku markuu yahay ugu yaraan lifestyle advisor markaad tahay brand partner 2% ayaad leedahay okay waa kana marka a little bit more explanation waa kana ujeedaa so qofkan waa kana abaay naciimo waaye okay abaay aamina abaay sacaada iyo aniga kasoo qaad 3deenaas ayaa upline u ah 3deenaas ayaa helayno kii brand partner 2% kaliyuu helaa kuwii kalena 4% ayay helayaan okay now waa kana marka midkan sawir ka qaata midaan ayaa si fiican u sii fahmi kartaan okay so 3 generation waa mujeedid oo number of level first levelkaagi labaad ilaa 3aad intii ka badan bonuskan ma lihid okay badankeen 3 generation waa horaa dhaafnay hadda ani maanta xisaabiyo 20 generation amara u malaynaa okay laakiin waa 3 generationka sidii oo lagu noqdo fair qof kasta 3 generationkiisa inuu ka helo qofka 3 generation intii kale oo leedi heli jirna oo ahayd infinity forever weli way socotaa waa on top waa lagu sii biiriye haye ka soo qaad marka 12 qof ah adiga toos u keentay ayaa jiro ka soo qaad 12 qof way baxeen bishii waxay gateen $80 ku adeegteen waa hal dhalo oo divine ah wax kale iska daa 80kaas kaliya gateen adiga waxaa leedahay 4% right lifestyle advisor aad tahay halkaa maxaa kaaga soo baxaayo $38 ayaa jimcahaas kuu soo dhacayso okay imagine hadday gateen 160 ha imagine 200 oo alaab hadday gateen 300 oo alaab hadday gateen yani halkaa maxaa laga soo qaata kaliya hal shay iyagoo iibsaday okay haye ka soo qaad marka generationkaaga labaad waxay marayaan 144 qof okay uu marayaa generationka labaad
sidoo kale generationkaaga labaad maxay sameeyeen hal shay keliya gateen 4% ku leedahay halkaa maxaa ku soo dhacaya jimcahaas $460 oo extra ku ah kii talaadada kuu imaanaysay haye kasoo qaad generationkaaga saddexaad wuxuu marayaa 1728 ugu yaraan haye qof kasta wuxuu gatay keliya hal shay 4% ku leedahay halkaa maxaa kaaga soo dhacaya bal meeshaan fiiriya xisaab male inta tiimkeena dhaxdo 5,000 keliya haddaan ka sameeyo opulence waa dambe qofoo u shaqaynayo male ani waagaan ka fariisanayo shaqada maxaa idhi ugu yaraan 10,000 inaan gaaro bishisa uga fariisto everybody waa different qaarkii $2,000 ku filan qofka suuso cidna ugu shaqaynin yes Aisha muxuu sameeyey qofna waxna alaab unbay gateen qofkaas maadaamuu adiga ilaa 3 level uu ku jiro Aisha lacagtan way ka soo dhacaysaa alaab unbay iibsadeen wax kale ma sameynin waa waxay already waxay gataan waay 150 already ku adeegtaan already talaadada commission ka sameynayna ayaa haddana nanu ku sii biiriyay ma fahanteen weli miina fahminaa u malaynaa siyaa u jiiftaan already waxay gadanayeen waay wax cusub ma sameynooyaan tiimkeena har iyo habeen way adeeganooyaan ifraax it's amazing si fiican u fahmaa aniga maasha allah tabaaraka allah waxa weeyaan sheer baaram sheer weeyaan dadka dhan qof kasta meeshiisa ugu imanaysa laga dadaalay iga raalaxada maanta waan jiranahay idinkana waa idin waayeelaynayaa mooye tabcaana thank you macaanta naciima gacantaa ku taagan soo dhawow ilaaha ku caafiya xabiibtii abaya ifraax waxaa dadaa waxaa ogahay hadda waxay iska soo jari doonaan dad kale xoolay kusoo daaleen baa dadkan la siinaya jiifkooda ay ku jaqayaan ma fahanta laakiin sida anigu u fahmay rabaa inaan dadkan u fahmaan ayagana inta aan fahansanay waxaa waaye dhaqaalaha mar walba kambanigu soo garaayay faa'iidadii kambaniga asaga soo galaysay ayuu haddana annagii qayb nooga soo celinayaa marka dadaalkii mar walba waa wada adiga dadkan waa la shaqaynaysay wax walbana waa ka caawinaysay marka faa'iidadii marka alaabtii gateen kambanigu uu wada qaadan lahaa ayaa adiga qayb lagaaga soo celiyay marka waxaa waaye waxaaga waxaa la kuugu dirwaasi abaa ifraax dhihi jirtay ku socmaanta ku soo celin aad iyo aad waa already waxaynu sameyno kombanigii faa'iidada uu helaya ayuu iska soo gooyo annaga nagu sii darooyaa maasha allah tabaaraka allah ifraax waxaan ku jeclaystay ma ahan only sida abaya gabadhayda sheegtay naciimana hoteelka weli kuma ximaarin moogta adduunka naciimoy waxaad heshay qolkii adduunka waxaad nasiib u yeelanay كرور للراعة قلت هاي وصوكا كعين وحا هدرتان ايقا دافنا هاد ميام كلي آد مارتا مسكرايسي والله إنا مسوين كتشاك مسوين تاكد على القضاء وتشيب صدي أو إسئني بكتر يرس كقا يا وحا أنا بيه بركن إيتاهاي إنديهم بأيواوين هذا ما شاء الله دبي باينو بالله ما دي الله I miss you حمو I miss you too رالي هذا I'm فاهمة إفراحي was shared down to the like this is more even waxa aad looga fikirayaa dadkoo dhan sababtoo waxaa dhici karta team 10 generation aniga ii jira inuu active yahay marka dadkii activitygaa sameeyey baa hoos loogu daadegay oo la yiri haye wixii idinma gudbayaane horta wixii kala qaata idin ka aad baan uga helay maasha allah tabaarakallah teamka is wadaya hay exactly dadkii aanan haysan tiim badan oo shaqaynaya ee heeray ku gaaraan inay talaado kasta sameeyaan ayaa loo soo dedejiye ayagi ayaa dhaqaalihii loo soo dedejiyey inay sugaan ma aha heerkaas intay ka gaarayaan intaasoo CV inay sugaan ma aha hal shay ay gataan qof 3 generation isla markii lacagta usoo dhacaysaa yes maasha allah tabaaraka allah ka soo qaad marka waa kana hadday maxaan dhahayo 150 ka soo qaad 80 iska daa hadda 150 ayay sameeyaan soo maaha bal fiiri 150 gan wuxuu sameynayo bal fiiri allahu akbar abay marka hadday fahantaa u malaynaa maasha allah ay dhowsaa marka tiimkeeda dadka soo kabcayay ka mid tahay maasha allah tabaaraka allah
fiiri 12 qof ayuu yahay first generationka ka soo qaad okay 150 ku adeeganayaan 12 kaas 4% extra ayaa lagu siinayaa $102 ku soo dhacayso jimcahaas yes ka soo qaad generationkaaga labaad 144 qof uu marayaa qof kasta 150 kaliya ku adeeganayaa maxaa ku soo dhacayo 864 yes Allahu akbar 864 ka soo qaad bilay ku qaadatay still bila isaga bixin kartaa sadaqada aad dirtaa ku dari kartaa waxuun ba isaga hagaajineen haye ka soo qaad marka 3 generation waxay marayaan 728 qofka muxuu sameynaa kaliya 150 ku adeegana waa already waxa uu sameynaa 4% extra lagu siinaa halka maxaa kaaga soo dhacay bal fiiriya Allahu akbar $10,368 bonus kan kaliya ayay dad badan ku gaari karaan financial freedom bonus kan kaliya ما شاء الله تبارك الله yes فتوني معانتو أباي فتون I don't know why أنا كليا أركي كروحة سوق ريسد I can't wait to grow my team exactly معانتو exactly قفك ويري كالي مرة بتا لعق دق إنا سميسد هل قف مدق هل بدح مدق كليا هي ضد كاس مركزتي أديكتان إنا أسوكتي معها كوميشن كي بدنا أو أها مركا جارتد 900 CV هل كان وحوصتان صدح أفرت الليبلا هذا هي سنة 900 CV كان ما جرتو هل شيء قطان الله وصينا هذا يدي الله أكبر سو جماعة وصوا على دو إلهي واسوق لأحي بونس كان دبنا أفيري واي مارسو بلا منا من أبريل I think مارسو بلا منا okay so إنه جماعة هذا بصوص عضو real life example بدن كان أركي دونا okay so already إحنا السوق حوجا مركي نوصل على أركينا جماعة دم بعدين نتري وصويا عنا بيبي أبريل بوبلا أبريل يا بوي حوكي الله معي بس إسكافيري يا مركا وارنتا إيش أنكو هاي الجماعة هذا كذب ترى هذا كليه هالسجرينا أنا وافيرنا ويدي سو شيء قف كاسيا وي زوم يوزر وقرنتا هاي سؤال في عن قف زوم يوزر وقرنتا وحده هاي is this CV or real money معناته cash أترسني شد واي wallet كاغا لعقتان أنا wallet كاغا وأرديسا كسر دعيسا سهاد النوع كسر دعده ما أحد بعلى السوق CV للسوق ضم بويت ماته real cash كي إسلام مركل له يني ما جعلان له هاد extra 200 بش إنا سميسيد extra 500 extra 1000 let me show you all you have to do ويران حلقة بدح هي حلقة مدك that's it ضدكاس الله شقي ضدك الله شقي خلاص وحوي صوت عيان الله أكبر أوكي وأمال آدم from UK صوت معانتو ما أنت مقعاكو مقرنيوش لو قرنا نجري أوكي صفي عن مو فهنا كوميشن بوستيجان قفي من مدو أو جرت ما جرو إيه مسقفة كويسان وما دعي كرتو هاو أنا first time أرجع سنة أنا قصورتي no way رمضان مبارك معانتو okay أباي سعادة وحيد تري I'm gonna watch the recording again as I don't understand okay which one هذا فهن سنين معانتو commission boosting مس وحي كله product إسكا هاي commission booster كحلا أمالينا okay ويكوسو علينا يا okay commission boosting محاواي bonus عصب وكمبني جينا صو صاري وحيرا دي علينا bonus كان هلي كرو قف كستو كمبني كجرو هدات هاي lifestyle advisor plus هدات هاي brand partner هدات هاي lifestyle advisor مركات هاي lifestyle advisor plus lifestyle advisor 4% هالليضحي لكن مركات هاي كان هو 2% أيها حتى لما قضين ولي equal opportunity أوكي معان تواكو فهمي حيه ويران صدح ذا مدوينات هاي تاسو كل جين check why right ويران هل قف أو active إنه كايا لبدح هل قف أو active إنه كايا لمدك انت سوا فهمنا وباينري إنه نقاني حيه محل جاجبه هي مركب الشيء بقول يو كنتر ماشي كو أديجن لهاد
250 inaa ku adeegatay adiga ugu yaraan waxay noqon kartaa macaamiil waa dalbadeen ha hadda ayaan dhaweyd abaay raxmo maxay iisoo diraysay shaambooyin gabdha shaqadeeda ka dalbadeen ha so alaabuu qofku dhahay lacagtiyaa ka soo qaaday qofkii accountkaa uga dhex dalbay right 250 waa inay gaartaa alaabta accountkaa ka dhex dalabtay okay haye haddee marka ayaarti bilaabanaysaa intaa waa samaysa soo maaha hambalyo hadda marka waa kanaa ka soo qaad 12 qof okay oo ah first generationkaagii second generation third generation ay noqon karaan it doesn't matter ugu yaraan 3 level waa inay ku jiraan so example-ka hadda soo qaata waxay abaay naciima yaa keenay abaay aamin isxaaq abaay aamin isxaaq yaa keenay abaay sacaada yaa keenay aniga so wax allaale waxay naciimo samayso 3deenaas 4% ayaa toos noogu imaanayso yes wixii hore oo talaadadii la samayn jiray weli waa sideedii waa extra yes waa extra qofka waa inuu at least ku jiraa 3 levels ha 3 levels wixii ka badan waxaa helaya dadkii kaasii hooseeya waa very fair system saa u jeclahay everybody ayaa wax helaayo qof kasta 3 level waa inuu qofka ku jiraa ugu yaraan farta uu qaado ama $80 ha ku adeegto ama $150 ha ku adeegto ama ka badan ha ku adeegto 4% extra ayaa ku leedahay haye hadda ma fahantay sacaada macaanto hadda intaa ma fahantay aad iyo aaday muhiim u tahay everybody oo tiimkaagana fahansiin kartid dad badan oo war iyo waxaan u haynin ayaa hadhow taqadaayo ha okay naciima soo dhawow macaanta gacantaa ku taagan okay naciima codkaa kuu furay macaanta welcome masanta abaye anigoo kaleeta hadda tiimkayga dad oo like second generation and third generation ma haysto marka qofkaasoo kaleeta asaga waagu yeesho le waayo soo mahan anaa waxaa umaleynaya inaa laga wado oo dadka macnihii adi kaa hooseeyo ilaa iyo 3 generation ba kaaga imaanaysa sida hadda u sharaxda waay baas laakiin haddana waxaan ka dadka aan haynin oo hal generation ama second generation leh still waa uga imaanaysaa soo ma ahan haddii hal generation leeyihiin halka generation uga imaanaysaa wixii kasoo gaaro soo maahan exactly macaanta waa kan level 1 yes qof kasta qofka raba inuu ka faa'iideysto bonuskan ugu yaraan 2 qof waa inuu asaga keenay midna bidix midna midig ugu yaraan hambalyo you are eligible yes macaanto yes waa everybody waa laga siman yahay qof kastaa heli kara okay hadda waan fahmay good Aisha waa ku faraxsan inaa fahantaa bay sacaado way fahantay yes hadda ma fahanteen marka fahamtu yes hadda maxaan uga fahmay ifraax waan fahmay dadkaasina waa inay dadka ka hooseeya waa inay wax gataan saas haylaawinina inay wax gataan inay ku jirto ay ku hoos ka hooseeya iska farfadhiyaanaysan active businesses lahayn dan waxana waa isla dansan yihiin ma aqaan waxa ka wadid macaanto dadka ka hooseeso inay wax gataan ma fiicna soo wax gadasho kuma xirna percentage waa kana hay macaanto waa waxa ka hadla sax waka inay wax gataan waa yes ama hal shay ha gataan ama dhowr shay ha gataan ma kala jecel intaasaan rabay inaan u yar caddeeyo iyagoo dhan hay okay so wax ku xiran ma aha qofka inuu 150 gashanaayo wax ku xiran ma aha 900 CV ama 1800 CV left right 1/3 2/3 3 waxay aan naqaanin ma aha ugu yaraan 2 qof hal qof oo bidixi hal midig ka yaala ha dadka ma adeeganayaan waa kan adeegan hadii la rabo xataa ayagii ma aha waa macaamiil ay ka sii iibiyeen hadda abaay raxma anaa keenay waxaas ay gabdhahaas ka gadayso ayada xataa ma gadanayso weli laakiin 4% waa ku leeyahay
VIP gooduu noqon karaa qofkii ma aha qasab inuu iibsanayo okay actually shalaa la weydiiye su-aashaas shalay ka imaatay yaanu ku degdegin I think Rico inuu dhahay VIP kuma jiraan let me write it down yaa ku degdegin laakiin haddii lacagta aa qofka ka soo qaadid ee account-kaaga ka dhex iibinayaan then yes wuu leeyahay waa emails ma jeedaa number of email waa in adeegan laga sameynayo email not VIP account haddaa xasuustay sorry but you need to spend $250 a month to qualify just to make sure yes macaanto yes waa hadiyadda variance bonus oo kale variance bonus mar dhawaan si doonaa alla mise inta kuma jirto slide-kan variance bonus bishii dhaweyd 12,000 laga sameeyey variance bonus oo kale waaye haddaa rabtid inaad heshid variance bonus $250 inaad ku adeegatid so adiga ma aha qasab inaad adeegatid dadka alaabta kaa dalbadayna lacagta ka soo qaada account-kaaga ka dalbee so $250 PV saasay kuugu noqonay macaanto yes okay account-kaaga adeega bishaas laga dhex iibiyey waa inuu gaarayo 250 so inta aa ka gadi lahayd VIP account because hadda MGRS xataa waa la bedelay VIP account uma baahnina wax ka gadid wixii dhan waxa loo bedela kaagina ka gatid maxaa la ogaaday dadka badankood inay ku fiican yihiin inay account-kooda wax ka dhex iibiyaan alaab ka dalbaan ay sii iibiyaan ee adkaatay VIP-gi soo hawada laga saaray soo qofkii wax kaa dalbado lacagta ka soo qaad oo full ah account-kaaga ka dhex iibi saa 250-gan u buuxisid okay VIP-ga hadda aad iyo aad u yaraaday so everybody ma rabta alaabta inaa ku dalba keen lacagti account-kaaga ka dhex dalab dabcan full price ka siinaya iyaga ha ka siin inta adiga kugu joogtay because adiga hadiyaddan keliya ma rabtid faa'iidaadina waa rabtaa right haye wax kaloo su'aala team intaana socon aad iyo aaday muhiim u tahay inaad fahanteen okay abay naciima gacantaa ku taagan so waa tii hore macaanto baatii hore waayo amaleena ma dejinin sorry no problem anaa kuu dejinayo okay ma fahanteen team si fiican ma u fahanteen imise qof ayaa taqaanaa jeclaan lahaa $200 $1,000 inuu extra sameeyo bishii okay abay mako gacantaa ku taagan oo kusoo qabanaa okay mako soo dhawow macaanto السلام عليكم ودعواني ودا سلام يا جبي أنا ما شاء الله حكون فرح سنة ما تينو VIP جينا جهاري صراحة أنا VIP قاعد بيدرتنا well very good news for me aad iyo aad macaanto dad badan saasay u farxeen waxay dhahay anaga keena waa ka dalbi karnaa laakiin macaamiil laga dalbo abay fatuun waxay tiri yes ما شاء الله والله هو خطر ويان العقب بدل ما كسبنا إن شاء الله آمين آمين macaanto ilaahay subxaanahu watacaala kuwii walaalahood nooga faa'iideeyo wanaagna ku sameeya ilaahay naga dhigo insha allah آمين 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 خير بني رجعنا sidoo kale macaanto okay so VIP dambe laisku wareerinaayo ma laha team taas ogaada okay account-kaaga ka adeegaysaa okay waxa u malaynaa inaad fahanteen insha allah everybody oo teamkaaga ah dabcan dadkii oo dhan hadda kuma jiraan okay dadkii oo dhan hadda kuma jiraan so waa la wadaagi taleefon kor u qaad la wadaag recordingka hadda markuu soo bixo la wadaag fiiriyaa leedahay dhaqaalaha sida loo sameeyo oo aad loo fududeeyo ma jeclaan lahayd okay so everybody oo haysto ugu yaraan 2 qof hal qof ka jooga bidix hal qof midig ka joogo oo asagana dukaantiisa ka dhex adeegayo ugu yaraan 250 faa'iidadan uu leeyahay shuruud kale oo ku xiran haba yaraatee ma laha okay hadda marka maxaa lagu tusinayaa bigger picture sawirka weyn aa lagu tusinayaa bal fiiri okay qofka markuu yahay brand partner packageka ugu hooseeyo si kasta ee 3diisa level generation ee wax u gataan asbuuci 333 ka badan ma sameyn karo si kasta hadduu yahay lifestyle advisor iyo lifestyle advisor plus muxuu sameynaa asbuuci 1000 ka badan ma sameyn kartid okay hadduu yahay lifestyle director 1 fiiri 1500 so waa kaasaa fatuunay yes 1500 a week ayaa sameyn kartaa maasha allah so usii soconaya waa ujeedaan ilaa iyo
meesha ugu sarreyso oo ah 60,000 wiigi hadda waa aragteen compensation plankeenna waxaynu dhahnaa sanadkii maxaa samayn kartaa 3.2 milyan 3.2 milyan maxaa lagu gaari qofka markuu samayn kara asbuuci 60,000 compensation plankii oo kale dhan iska daa bonuskan keliya ayaa 3 milyanka ku samayn kartaa wow residual incomekii fogaa saddexdii business centerkii ahayd inuu isfuro waxaasoo dhan ma jirto kan keliya ayaa compensation planka meesha ugu sarreysa kusoo taaban kartaa subxaan allah okay hadda videogan yarkaa ila arka ani waa maqlaa codka ma maqashaan adinka sometimes codka ma shaqeeyo I don't know why no okay waa garanaya sometimes ma shaqeeyo kaliya wuxuuna tusinayaa new opulence club wax la dhaho lagu soo daray opulence club okay okay waa ka gudbeynaa opulence club maxaa tahay maasha allah tabaaraka allah midaanoo kale sawir ka qaado ma ogtihiin inay jiraan dad badan oo combanygeenna ama industrygeenna u soo galeen lifestyle yes lifestyle ma raadinayaan financial freedom ma raadinayaan hebelo lifestylekaas ayay rabaan maxay rabaan kow gaariga inay ka faa'iidaystaan yes benefitka gaariga aad ogtihiin oo ah 6 level 500 ilaa iyo 4,000 bil walba aad samayn kartid maxaa marka lagu biiriye luxury gifts yes mar dhow ka hadli doono waa lagu biiriye in giftiyaal extra ah aa heli kartid cruise vacation waa midka aynu naqaano olida markabka hadda aynu ka soo noqonnay anyaamir saare siciid maasha allah leadership summit yes oo LD3 iyo LD4 loo diro exotic vacation waa midda hadda inoo soo socoto Dubai insha Allah mar dhow lagu dhawaaqi doono haye middan first class Renee intiinee aragtay Renee hadda markuu u socday Philippines labadiisa wiil iyo asagay familigiisa intiinee aragtay maasha Allah xaada ayaa ikacday wuxuu yiri ilaa waagaan yaraa waxa isweydiin jiray sidee tahay first class yacni dayuurada ilmaha markay yar yihiin waxyaabo waxa jira istusaan ilmahayga marka wiilkiisa midna 12 jir midna 14 jir iyo umaleena hadayse ka yareen first class ay saaran yihiin kursiga xataa ka weyn ha first class iyo private jet iyo prestige ferry marsh bonus midaan waan ogeen waxyaabaha lagu daray waa luxury giftigaas iyo leadership summitkan okay ugu dambeyn yes ugu dambeyn waxaa naloo soo saaray wax la yiraahdo March Madness magacaas wuxuu ku baxay intiina basketball daawato March kasta waxaa jirto ciyaalada collegeyaasha dhigtaan oo dhan ayaa isku baxaan banooni haye promotionkana marka naloo soo saaro bal fiiriya promotionkan maasha Allah tabaarakallah muxuu inoo soconayaa March 16 shalay ayuu bilaabmay ilaa iyo 30 Abriil yes waxa moodaa Ramadaan iyo Ciid inuu ku talagalay yes shalay laga bilaabo ilaa 30 Abriil ayaa haysataa haye yaa ka qayb qaadan kara dabcan lifestyle advisor waa inaad tahay ugu yaraan iyo wixii ka sarreeya tiimkeenna 95% waa meeshaynu joogno hambalyo haye sidee uga faa'iidaysan kartaa number 1 inaad ku adeegatid ugu yaraan $450 bisha Maarso iyo bisha Abriil waa lisuuka daraa adeegaagi haddaad doonto 250 iyo 250 500 number 1 haye maxaa kale 2 qof oo lifestyle advisor plus inaad company-ga ku soo dartid yes bil iyo bar ayaynu haysanaa ugu yaraan 2 qof lifestyle advisor plus ah
intaa waa samaysay bal fiiri waxaa helaysa marka kow intaynan u gudagelin intaan yaa ii sheegi kara lifestyle advisor plus halkii qof meeqa ayaa commission ku leenahay yaa xasuusto ani numberskaa jeclahay waxbaa isku dardaraa yaa xasuusto hal qof oo lifestyle advisor plus commissionkaaga maxaa waaye commissionkayga kun buu ahaa qofkii sorry macaanta maku fahmin waxaa dhahday commissionka soo kun maahan qofkii lifestyle advisor ah may naciimaa Okay. sheegtay 350 Hay. Okay. yes exactly naciima 350 waay right because qofka packageka uu qaato alaabta la socoto commissionkeeda waay 350 haye laba qofaa keentay 350 times 2 700 meel ii dhig 700 oo cash ayaa already samaysay 450 markaa iibisid meeqaa kuu saaran 30% ilaa iyo 40% haye meel iska dhig haye muxuu marka kumbaniga kuugu darayaa kow wuxuu ku siinayaa $700 oo ah gift card maxaa ku gadanaya ama tablet ama cell phone yes dad badana maxay dhahaan maalin kasta haddii haysan lahaa taleefon casriyaysan haddaa haysan lahaa tablet fiican ganacsiga wuu iisii kala kici lahaa right imise qofaa taqaanaa bilaash uu ku helayaa yes haye 700 oo kaasha 700 oo gift card waa 1400 soo maaha aysan ku jirin alaabtan waxaa ka helaysid right 1400 ma maraynaa maxaa kaloo lagu raacinaa laba share oo ah MGRS intuu noqon doono bishaa ma taqaanid because waxay ku xiran tahay faa'iidada companigeena soo gasho MGRS maxaa waaye monthly global revenue sharing 16 Maarso ilaa April 30 faa'iidada companigaa soo gasho laba share lagaa siinaa halka share muxuu noqon karaa 100 200 300 400 laba lagu dhufanaa haye maxaa kale various bonus waa hadiyadii haddaay aan ka hadlaaya 12,000 bishii dhaweyd kaliya la bixiye dadka adduun weynaha jooga ay sameynayaan various bonuskan marka sida loo sameeyo dib haddaa idiin xasuusiyo kow maxaa lagaaga baahan yahay ugu yaraan LD1 inaad tahay number 250 bisha inaad ku adeeganaysid already 450 sameynaysaa so dabcan 250 waa dhaafte haye maxaa kaloo lagaaga baahnaa marka various bonuska dadka teamkaaga kusoo biiraya inay yihiin lifestyle advisor plus already labo ayaa keenaysaa 2 lifestyle advisor plus keen ma lagu dhihinoo aa keenaysaa so ayagana various bonus ayaa ka sameynaysaa markaa xisaabtantid 2,000 ilaa iyo 2,500 ayaa ku soo galayso bonuskan keliya haye 6 asbuuc oo soo socota marka intaasoo faa'iido ah uu kuu dheer yahay commissionkaagii bonuska hadda ka soo hadlaynay ma ka faa'iidaysanay kulle aniga way iga go'an tahay hadduu ilaahay idmo ha intaasoo faa'iido ah waa 2,000 iyo saa'id oo ah hadiyad kaliya maxaa samaysay wixii hore u samayn jirtay dukaankaagana waa ka adeegatay walaalana waxaa la wadaagtay ganacsigaaga annaga marka reer Ottawa April 20 event weyn noo socdo ilaahay idmo talaado kasta wili kulamadeena waynu sameynaa so chance aad u weyn ah haysanaa adiga meel kasta joogtid hadeertaan ayaa qabaqaabin kartaa kulan ama afro ha noqoto ama hebelo ha noqoto dhowr qof oo asxaabtaada ah dhowr qof oo communitygaaga ah right alleedahay ila fiiriya fursadana idin hayaa okay so kulligeen waxaana la siiyay yani fursad aad iyo aad u dheer oo aad u farxay markii la April 30 ma sha Allah tabarakallah ramadaankeeno dhan dhameeysta ilaa iyo ciideeni ha 6 wiiga haysana inaynu ka faa'iideysano waxa rajeenayaa hadduu ilaahay idmo in walaalo badan ay ka soo muuqan doonaan 15 May booster ka soo baxaya waxa soo faa'iido marka
Oh, gift card will be sent May 15. Okay. So lacagta cash-ka ah oo e-wallet ku soo dhacaysa MJRS-ta weli 15 ayay soo dhacay. Laakiin 700 oo kaarka ah ayaa la soo diri doonaa 15 May. So intiina tablet rabto, intiina cell phone cusub rabto, kulligeena iska rabno ama cunug yaroo dhalashadiisa tahaa siinaysaa meel un bay kaaga aadi, right? ama intaa soo gadaa sii gadee choice adaa iska leh. Ha, waa free money. Free money. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اوكي هي wax su'aal cid ka qabta ma jirtaa in promotion kan inoo socdo 16 March ilaa iyo 30. Okay ma ka gacanta ku taagan soo dhawo macaanto codka iska fur macaanto. ها والله waxaan doonaa ku weydiiyo in 450 waa inaad alaab ku iibsid soo maaha waa inaad Yes, alaab iibsid labada bilood yes macaanto adeegaaga waaye okay ha intaa ma doonaa fahma mahadsan saxibti adigaa mudan. Okay waa adeega dadka aa ka adeegada isku so qofkii wax kaa dalbado account-kaaga oga dalba saa idiin sheegay account-kiina dhexdiina ka dalba. VIB aad ha isugu wareerina way jirtaa weli qof macmiil ah oo jecel inuu account-kiisa ka dalbado siduu u helo dhibcaha iyo point-ka iyaga waxbay helaan, right? laakiin hadda kadib dukaankaaga ka dhex adeeg. Yes, so 450 March iyo 450 April. Ha, dukaankaaga ka dhex adeegay. Okay wax kaloo su'aal ah. ها Okay miida geliya abaayo mako chat-ka yaa wax ii soo qoray. Old VIP do they count? Yes macaanto, yes waa horaa lagu daray MJRS goormaa laga saaray new VIP ma jirto kuwii hore aa ka dalban karaa. Yes macaanto they count. Yes new VIP waa horaa la joojiyey. Okay ma hadli karaa Aisha? Yes macaanto waa hadli kartaa. Okay waa ku soo qabanaa. Aisha barmooshinkaa si fiican ma u fahanay. Okay Aisha soo dhawo macaanto. Aisha mute-ka iska qaad macaanto. ها مي مقلع باي si fiican macaanto welcome. ها حتى سأجري وجهي كنينيجا يقعدوا قبك مثل ولا قاعدين كرا boqolkiiba boqol yes macaanto. ها أوكي ومقلوس ما كان أيلا أو قاعد بدل عنتي كنينيجا ما عمري كرتا yes macaanto yes waa la isla qaadan karaa. aniga balaankayga waxa waaye inaa kala duwo iska soo qaad hadda markaa quraacdoo kalaa qaataa barqadii oo kale inaa qaata kaniiniga laakiin dhowr jeeraa companiga la weydiiyey isku mar waa la qaadan karaa. Yes inay is caawiyaan maahayna wax dhib iskuma keenayaan hadduu ilaahay idmo. أوكي صح أنت waxaan rabay horta qofka had oo aanan haysan laba gacmood aanan haysan balse adeeg gato wax ma helaa horta kambaniga oo bonuska hadda ka hadlaaya mise sidii hore aan naqaanay. sidii hore calaashan aan naqaan moo iska bedel mid qofka maba haysa bidix iyo midig laakiin adeegu gataa iskama bedelin sidii hore uga faa'iida macaanto. صح gadowgiisaas le wixii ilaahay ka siiyo waay ilaa intuu dadka helaayo exactly macaanto. waa mahadsan tahay baal adigaa mudan. Okay wax kaloo su'aala team barmooshinkaa ma fahanteen? ما شاء الله تبارك الله. اوكي اباي دقيقه gacanta ku taagan deeqo soo dhawo macaanto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك دمانتينا رمضان مبارك macaanto. عليكم السلام ورحمة الله.
ما شاء الله تبارك الله والله هدا مid aniga ma ogeyn bas barnaamijka dhan haddeer markaan soo galay guriga arkay saa u farxay adinkoo ku jirtiin markaan horta ma sha Allah تبارك الله waayahan waa isweynay waayahan ma aqaan aniga keligay miyaa mise waa dadka dhan aniga keliya miyaa lumay ramadaanka waa joojinay macaanto waa joojinay kulamadii waxaa la yidhi cibaadada ha lagu focus gareeyo laakiin maanta waxaa u soo galay waxa waaye isbedeladan cusub maasha allah isbedelkan hadda wax weyn kama maqlinin waxa la gadanaya kaniiniga horta arka maasha allah hadda ujeeda kaniiniga niloo keenay maasha allah tabaaraka allah goormee la dalbana asaga mise waa ku jira waayahan dhaba hadda dalbanay shalaa la furay macaanto maasha allah because daraada aniga wax goojo dalbaday kuma ma arkinin hadda arkay yes macaanto shaluu soo baxay maxaa marka 400 hadda iyo wax yar kan iyadoo raali ma dul mari kartaa si fiican uma fahmin promotionkan boqolki boqol macaanto waxa waaye bill assist promotion noo soo baxday bisha maarso 16keedii shalay ilaa iyo abril 30keeda ayaynu haysanaa ka faa'iideysanaa hadduu ilaahay idmo sida looga faa'iideysanaa waxa waaye adigana tahay ugu yaraan lifestyle advisor labo bisha maarso iyo bisha abrilba $450 dukaankaaga alaab ah inaad uga adeegtid saddex laba qof oo lifestyle advisor plus ah inaad kombaniga la wadaagto kusoo dartid kadib muxuu kombaniga ku siinayaa kow labada qofaa keentay qofkiiba already waxaa ka samaynaysaa 350 waa naqaanaa 700 halkaas kaa soo gashay alaabtan faa'iidadii waa leedahay 30% ilaa 40% maxaa kaloo lagu siinaa $700 oo ah gift card oo ama taleefon ama tablet kusoo gadan kartid oo bilaash ah iyo 2 share oo MGRS ahayd iyo various bonus hadiyad oo hadda ka hor sanadii xoogaa ay socotaa oo qof kasta oo lifestyle director wani wixii ka sareeya uu heli karo marka aan xisaabiyay 2000 ilaa 2500 oo free money ah waay ma sha Allah ما شاء الله تبارك الله صح وافهمي ما شاء الله thank you وما تصنتها جزاك الله خير حبيبتي adiga mudan macaanto adiga mudan okay waxa gaalo gacanta u taagantahay bay Faaduma Maxamuud another Minnesota Faaduma soo dhawo macaanto السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الله يعزك فرحي وصوتها لكن إلهي إذن كي ريكوردينج كان كنا قندونا كما علنا لكن هل كان هذا ولا لك سؤالي سي بلدا سيس ماتشكا قيبت أوها ريسيفر كا وحا كو قران eligible lifestyle director halkii hore Price Bonus-ka ay dadkii LD1 iyo wixii ka koreeyay heli jireen marka ma lagu soo daray ma lifestyle director 1ka buu ku eg yahay mise eligible kan lifestyle director xataa uu helayaa hadduu nasiib u helo inuu 2 qof keeno oo uu intaas soo maro 450 BV-duna ma $450 inuu ka adeegta miyaa u dhigantaa su-aashay taas 450 BV-gaasi ma $450 oo Canadian alaab u dhiganta lianna adoo sidii maaragtay matalan divine-ka 6 xabba ah iibsaday oo kale mi kaaga filan tahay mi fahantay ما شاء الله تبارك الله آدي آد معانتو كو waxaan ku leeyahay promotion kan bill assist waxa ka faa'iideysan kara qof kasta oo lifestyle advisor ah ma qaybta u hooseysa receive-ka u horeysa eligible lifestyle director-ka price points kan ka hadlaya ma life director 1 ba wali mun eligible u amise sida halkan ay ku qoreen lifestyle director keliyana waa soo gelaya dadka yariiska nago kale good macaanto various bonuska sidee marka horeba ahaydba waxaa ka faa'iideysan kara keliya qofka lifestyle director 1 iyo wixii ka koreeyay sax okay marka halkan eligible lifestyle director miyay qaldeen hoos mujida ha macaanto waxay ku leeyihiin kiiba ka maqan ha lifestyle directors al isku dhahay directors waxa waaye 4 ويسا صار صح اوكي هلكاس ka hubinay Allah يعيسك باي adiga mudan macaanto adiga mudan su'aashaada kale waxay ahayd 450 ma noqon kartaa divine shalay waa la weydiiyay maadaama ay tahay pre-order ma ku jirto kuma jirto saasaa moodaa in lagu jawaabay waa wixii ka dambeeya
wakaa macaanto waxaana la bilaabayaa 16ka ay ka bilaaban wixii ka horreeyey waa nasiibka exactly macaanto maasha allah su-aashayda labaad waxaa tiri qofku markuu haysto laba dhinac 1 iyo 2 iyo 3gii volumeka waa xasuustaa aniga waa iga lumeen oo markii aan marka hadda laakiin laba dhinac waan haystaa oo labadeeda gacmood midna laba qof baa iga jooga midna qof oo pesticide-ka ah marka iyagu adeegtaan anna aan adeegto ayaan wax heli karaa soo maaha bonuskee ka hadli bonuska cusub oo la dhaho commission boost mise kii hore combinationka cusub baa bonuska cusub yes macaanto kuma xirna wax kale as long as ay ugu yaraan laba qof kaa hooseysay adeeganayaan waa extra hadiyad aa lagu siinaayo yes alxamdulilah haye okay kuma xirna yaa 150 bixin oo yaa active kuma xirno waa adeeg kasta okay war dhamaaday ifraaxay war dhamaaday haye macaanto hambalyo dhexda xirta insha allah kulligeen aynu ka faa'iidaysano okay wax kaloo su'aal ah bonuskan ku xariira clear soo ma aha kaliya maxaanu ka baahan yahay dadka inaynu la wadaagno yes dadka inaynu la wadaagno xagla laaban xoolo kuma yimaadaan right insha allah anigana video waa ka duubi doonaa aan ooga hadlayo maasha allah tabaaraka allah soo barmooshinkana waa kaasaa 16 ilaa iyo abril 30keeda ani waxaa ka baqaayay ramadaan dhexdeeda inay joojiyaan yacni waxaa muddo annaga inaynu ku talagalay ciid mubaarak maasha allah cibaadadeen annagoo wadano haddana dadka la wadaagno yes labadan sawir keliya qofka markuu arko ayuu soo jiidanayo ma taleefona bilaash ku heli karaa ma computer bilaash ku heli karaa right waxyaabaha kumbaniyaal badan waxaad arkaysaa dadka hadda waqti nasiibka cayaaro intay lacag gelinayaan say waxaan u helaan ha yacni iyagoo waxaasoo dhan marin ayay haddana maadaama already position company ka haystaan waa kanaa intaas samee saasaa u heli kartaa bilaash maxaa kaloo samayn kartaa qodadka adiga kuu soo gala qofka adiga kuu soo galo hadiyadahan maadaama 2,000 ka badan ay tahay aa wax ka siin kartaa right tiimkaaga dhexdiisa ayaa u samayn kartaa promotion qofka kuu soo gala intaa hadiyadan adiga la wayan lahayd so there's so many ways aan creative u noqon karno to get more people engaged right maasha allah tabaaraka allah koob shaah adoo la cabay dhowr sambuus u kariya bay ku xiran tahay okay qofkii rabo presentationkan waa ila soo wadaagi kartaa insha allah haddaa dad isku keentaan oo rabti inaan kugu sharxana happyaan ku ahay waa la wadaagi karaa promotionkan insha allah okay all right maxaa inooga xigo I think well that's it intaasay ku eg tahay bill assistiga okay so hadda waxaa sameynaya waa inoo joojinaa recordingka sidee walaalaha ugu dheeraanin annaga waa isku hari karnaa qofkii wax nagu darsanayo soo dhawaada idin leenahay insha allah